المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka hore waxaan jeclaan lahaa shirkan jaraa'id sababta aan u qabanay inaan dadweynaha u cadeyno. shirkan jaraa'id waxa ay dilucdiisu tahay mahad celin guud oo aan dhammaan u jeedinayno dadkii nagala qayb qaatay furitaankii ama dhagax dhigii jidka u dhaxeeya Boorama iyo Dila. waxaan jeclaan lahaa halkan inaan aad uga mahad celiyo markaan kala saaro dadkii dhammaan ka qayb qaatay arrintaasi hadday tahay xukuumadda, axsaabta mucaaradka dhammaantood, ganacsatada waaweyn, kuwa yaryar iyo dadkii marka horeba tabaruca xoogga leh ka geystay arrintaasi iyadoon loo kala harin. waxaan u jeedinayaa dhammaan shacab weynihii arrintaa ka qayb qaatay intii soo dhaweysayba mahad weyn baan u jeedinaa. runtii aanan garanayn wax ku cabiraba mahad uma odhanayn, laakiin waa arrin weyn bay ahayd. si wanaagsan bay noogu soo ajiibeen dhammaan dadkaasi furitaankii oo ka qayb qaateen, wayna la fureen, wayna la dhagax dhigeen. waxa weeyaan waxaan leenahay ilaahay abaalkiina ha mariyo dhammaantiin. waxaan anigu shakhsi ahaan ka guddoomiye ahaan ku qanacsanahay oon aada ugu faraxsanahay arrintaas shalay dhacday inay ahayd arrin taariikhiya runtii oo aada iyo aada dadka u farax gelinaysa oo u wanaagsan. haddaan in yaro tafaasiil hoos galo wixii fundraising shalay ku talagalay waxaan filayaa dadkuna waa maqleen, laakiin arrin weyn baa halkaa ka timid. waxaa la ballan qaaday ilaa 12 kiilo oo jidkaasa. waxaa lagu yaboohay lacag kaasha oo iyaduna ilaa 116 kuna oo inteeda badan ay gacanta ku jirta imika. inta ballan qaadkaana dhawaan intaan weegan dhamaan insha Allah aan gacanta ku qaban doono hadii Ilaahay idmo. intii bixisay iyo inta noo hadhe soo wado wax rajaynaynaa Ilaahay ugu rajaynaynaa inuu ajri xasanaad ka siiyo. waan u mahad celinaa mar kale dhammaantoodba. Assalaamu calaykum.